بسم الله. halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa fariin ka socota ururka Ayatiin Development Foundation oo dhawaan lagu aasaasay magaalada Buuhoodle. halkaad aragtaan hadda waxa weeye website-ka ururka Ayatiin. address-kiisu waa iska fudud yahay, waa ayatiin.com. page-kan ayaad ka daalacan kartaan waxyaalaha ugu dambeeyay ururku uu higsanayo ama waxyaalaha waxqabadkiisa. marka insha Allah waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa ururku waxa uu kaga duwan yahay ururadii kale ee hore u jiray. ururka Ayatiin wuxuu leeyahay guddiyo 3 oo kala sareeya. saad aragtaanba website-kana waad ka akhrisan kartaan. 9 xubnood waa golaha dhexe ama board of directors-ka ugu sareeya ururka ee la rabo masiirka ururka inay ilaaliyaan, dhaqaalihiisa ilaaliyaan, shaqadiisa ilaaliyaan. guddiga fulintuna waa 13 xubnood oo iyaguna loogu talagalay inay daily shaqooyinka joogtada ah ay si toos ah uga shiraan oo ay marba wixii loo baahay week walba ama bil walba inay shiraan. iyo guddiga saddexaad oo ka madax bannaan labada guddi oo isagu hanti dhowr ah oo la rabo 3 biloodba mar inuu kontrolo oo hubiyo dhaqdhaqaaqa. waxaa laga yaabaa qofka inuu isweydiiyo xaggee wax loogu soo shubayaa. 3 account buu leeyahay ururkani saad boardka ka aragtaanba. shirkadda Telesom caanka ku ah nidaamka saadka ama telefoonka la isugu diro lacagta, nambarkiisu waa ka. waxaa kale oo account ka furan yahay dahab oo account ku yahay 3674 ama dahab nambarka halkaa ku qoran eed ku soo aadin kartaan. waxaad kaloo lacagta ku soo aadin kartaan xawaalada Amal ee Buuhoodle oo account-ka ka furan uu yahay 6 way fududahay marka in xisaabaadka ururka halkaa laga kontrolo. 3 shirkadoodba waxay ururka xisaabiyihiisa u soo dirayaan statement week walba bangiga ama bank statement loogu talagalay in lagala socdo xisaabaadka iyo lacagta wixii soo galay. dadka xubnaha ana waa loo soo gudbinayaa, wayna la soconayaan ururku hadba wixii u soo xirooda. dhaqaalaha halkan loogu talagalay ururku inuu ku horumariyo deegaanka dadka gudaha jooga ayaa la rabaa inay 50% ama 60 bixiyaan, iyagu qurbo joogtuna ay 40% bixiso dii alla dhimo. mashaariicda uu doonayo ururka Ayatiin inuu culays ka saaro waxaa ka koow ah airport-ka Buuhoodle oo aad aragtaan sawiradiisa diyaaradihii u horeeyay ka soo dega. waxaa ka dhiman runway-ga oo la dheereeyo, waxaa ka dhiman parking-kii diyaaraddu ay haddii 2 diyaaradood isugu yimaadaan mid parking-kii la dhigi lahaa. waxaa kale oo dhiman terminaalkii iyo masaajidkii iyo waxyaalihii kale soo raacay. marka mashaariicda qabyada ahi waa badan yihiin, laakiin ka u horeeya priority-ga la siinaya waa airport-ka. mashaariicda kale qabyada ah waxaa ka mid ah saad aragtaanba dhismaha agoonta oo 2 dabaq ah oo u baahan runtii la dhammaystiro, lacag badanna u baahan. isagana insha Allah wuxuu ka mid yahay kuwa ururka Ayatiin uu dhammaystiri doono. waxyaalaha ururku idin ballan qaadayana waxaa ka mid ah macnihii lacagta aad soo dirtaan ama aad bixisaan qolada gudaha iyo dibadba in shilin walba meeshii loogu talagalay uu ku baxo oo uusan meel kala marin.
haddana waxaad aragtaan waa dhismihii cisbitaalka dhimirka Dr. Xabeeb loogu magac daray isaguna hadda dhismihiisu wuu socdaa shirkadda Dahabshiil Group ayaa siisay already 20,000 kunna already shaqadii waa lagu wadaa waxaan rajaynaynaa inuu dhaqso u dhammaado oo dhaqso loo isticmaalo haddii alla idmo Dr. Xabeeb cisbitaalka dhimirka saad aragtaanba waa jaamacadda East Africa University farceeda Buuhoodle waa qabyo hoolkii iyo library iyo dayrkii ayaa u dhiman insha Allah mashaariicda u taalo ururka Ayatiin ee la doonayo inuu dhammaystiro ayuu ka mid yahay farkali fool ma dhaqdo ururka Ayatiin haddii aad $1 siinayso iyo haddaad ka yar siinayso iyo haddaad $1 siinayso intaba uu u baahan yahay kaalmadaada qof kasta oo muslim ah oo Soomaali ah iyo qof kastaba oo bini aadanaba macaawimada uu ka qaadanaya macaawimada aan siyaasadaysnayn oo aan dan gaara laga lahayn ilaahay hortii loola baxayo ama loola baxayo kaalmayntu bini aadanku iskaalmeeyo intaba waa ururka Ayatiin waa aqbalaya marka waxbarashadii riboodyadii wadooyinkii muxuu ahay jeelkii intaba waxaa la doonayaa inaan haddii alla idmo lacagta in laydinka ururiyo inaan ku dhammaystirno insha Allah waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaynu ka qayb qaadano horumarka dalkeenna iyo dadkeenna barbarkay ka baxdaa waa bakay la qalan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay inoo fududeeyo hawshaas khayriga ah inuu wadno insha Allah dhammaantiin dadka dhageysanaya cajaladana waxaan ka baryaynaa oo ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan shaashada waxaad ku soo aragteen meelaha lacagta lagu soo shubayo waxa weeye qof walba insha Allah waqtiga qaaliga ah iyo lacagtaada qaaliga ah intaba nagu deeq oo intaad xawaalada kuugu dhow tagto ururka Ayatiin Development Foundation usoo shubixi aad usoo shubi karto qabiil male waa dal Soomaaliyeed oo inaga dhaxeeya insha Allah kuwa kalena wayna isugu tagaynaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh